soo dhawaada akhyaarta sheekadeena waxa ay ku saabsan tahay hooyo sheegtay in gabadheeda ay ka xaday gabadha shaqaalaha ah ka hor intaana muuqaalka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto haddii aad kanaalka ku cusub tahayna subscribe saaro mahadsanid gabadha shaqaalaha ah waxa ay isku dayday in ay iga xaddo gabadheeda waxa ay gabadha shaqaalaha ugu yeeri jirtay hooyo halka ninka qabane ay ugu yeeri jirtay aabbo dhab ahaantii arrintaas aad ayaan uga xumaaday markii aan ogaadane qalbiga ayaa ay jabay in gabadheeda shaqaalaha ay ugu yeerto hooyo iyo aabbe taas cagsigeedana annaga aysan noogu yeerin gabadha aan dhalay waa ii diiday inay hooyo iigu yeerto waxayna hooyadeed u malaynaysay gabadha shaqaalaha ay xanaanaysa sidaa daraaddeed waxaan shaqada ka ceeriyey gabadhii shaqaalaha ahayd laakiin gabadheeda waxa ay weydiinaysay aawa hooyaday waxaan anigana ku odhanayay hooyadaadu waa aniga intaas ka bacdi waxa ay bilowday in ay oyso waxayna igu tiri ayadoo ooynaysa hooyaday adigu ma tihid waxaan rabaa hooyaday aniga gabadha shaqaalaha waxaan u kireystay in ay gabadheeda ii xanaanayso taas cagsigeeda waan ka shalaayay wax walbana sidaan u malaynayay ma aysan noqonin waan shoogay markii aan arkay gabadheeda inay hooyo u aaminsan tahay gabadha shaqaalaha ah subaxii xigay waxaan hurdada ka soo kacay ayadoo aysan gabadheedii joogin guriga ayaan ka baaray markii aan waayana waxaan wacay booliiska waxaana ku idhi ma aqaano wax walba siday u dhacayaan xagee bay aaday gabadheeda waxaan u baahanahay inaad ii raadisaan gabadheeda guriga alaarmiga ama gambaleelka waa u daarnaa sidoo kaleeto albaabka kama muuqan in la soo jebiyey waxaan ka shakiyey gabadhii shaqaalaha ahayd inay iga xadday gabadheeda booliiska waxa ay weydiiyeen sawirka gabadheeda waxaana xaqiiqsaday oo aan ka shalaayay inaanan gabadheeda wax sawir ah la gelin aad ayaan uga shalaayay sababtoo ah weligay gabadheeda xoogga ma saarin inaan waqti la qaato mar kaste waxaan ku mashquulsanaa shaqadeeda laga soo bilaabo ilaa maalintii ay dhalatay waxaan ku wareejiyey oo ka taxadaraysay gabadha shaqaalaha ah waxa ay soo barbaarisay oo igala wareegtay maalintii aan dhalay gabadha shaqaalaha waxaan sii jiray mushaar aad u fiican ayadana waxa ay mas'uuliyad iska saartay barbaarinta gabadheeda wax walbana waxa ay u socdeen si wanaagsan markii gabadheeda kortay waxaan aniga iskaga mashquulay shaqadeeda iyo saaxiibaday inta badanna waxaan iska aadi jiray xafladaha laakiin weligay dareen gaara ma aan siinin gabadheeda gabadha shaqaalaha ayaa wax walba u qaban jirtay gabadheeda subax kastana waxa ay ka jeengangare jirtay ama ay baari jirtay caafimaadkeeda anigu waxaan isku dayay inaan gabadheeda siiyo waqti maadaama ay kortay laakiin taas waan ku qaldanaa waxaana aan ogeyn inaan mar hore gabadheeda siiyey hooyo kale taasina waa sababta keentay in gabadheeda ay ugu yeerto ninkeeda iyo ayada hooyo iyo aabbe waxayna u malaysaa inay ayaga yihiin qoyskeeda saxda ah waxaan ogaaday in la iga rabay inaan ayada waqti siiyo habeenkii ayay ku soo laabatay guriga ayadoo ay la socoto gabadhii shaqaalaha ahayd boorsadeedana u wadda waxay isla soo qaateen waqti laakiin waa ay ii soo laabteen laakiin anigu waxaan u malaynayay in gabadha shaqaalaha ay iga xadday gabadheeda laakiin sidaas maysan ahayn gabadheeda ayadaa si iskeeda u aaday guriga gabadha shaqaalaha ah waa ay xasuusatay waddada maadaama ay dhowr mar ay u wadday maanta waxaan fahmay qaladkayga inaysan gabadha shaqaalaha iga xadin gabadheeda aniga ayaa qaldan waxaa la iga rabay inaan waqti ku filan siiyo gabadheeda dhacdadaas kadib waxa aan go'aansaday in aan gabadheeda siiyo waqtiga ugu badan ayada aan la qaato sidoo kalena aan u noqdo hooyo wanaagsan waxaa laga joogaa 2 sano hadda wax walba waxa ay u socdaan si wanaagsan gabadheedana waa ay jeceshahay waxayna iigu yeertaa hooyo waxaan gartay qaladka inuu aniga xaggayga ka yimid aana ka daahay in aan gabadheeda waqti la qaato